guys وأنا وأمالة وإذن لك سو دواء channel كيجا هي وان صار نقضي حدنا فيديو كله حدنا وانت أمالة صار نقط واني سلامة يا هي يعني ورني بدي أقول إنه محاربة هنا فيديو إلى دعوتين قبل فيديو واحد قرن قبل قلمودو وقروح ذا بضن محيلة هاي بل إلى فيريا رجوا إسراع واحد أنا قبضنا كره داهلين وحلبوا يعني وحلبا كبحيدهن ما أنت دوية ثالو maxaad ka taqaanaa gabadha ugu quruxan galmudug oo rag badan darteeda isku dagaaleen gabadha u qalantay inay tartanka quruxda badan Afrika ku matasho Soomaali هل وعوارة ما إنا ده first هرتا مربي قبل مربي ده ما عينه you know what I mean لكن قروح هذا الله هاي ضدك إنا كشجع ويان like أنت سو استعكسد تي في ما لقى ورا سنة يا ما أوجي مثل يوتيوب السوق اللي سأعتر هذا أنا أو قروح بدل سومالي ولا whatever أساس أنت شهر ولا سو استعكسد أساس ده هذا like قف إسباني ورئيس نكتة ولا ما ديشرن ما داعي ما داعي هاي بلاني سي وضم intaan u guda galina warbixinta xiisaha badan fadlan shaahda muuqaalkan oo la wadaaga asxaabtaada aniga waxaan ahay gabadha ugu istaalka badan uguna quruxda badan galmudug yani rag walbana yani way soo damcaayaan aniga waxaan ما حكش كينسا استالك عاوي like شكو دبع له iyo khamaar caadi gabadh kasta xiran intaas Soomaali ma xakasha keenaysa gabadhu ugu qurux like inaba wax yaxay xal dhaha xataa ma jiro like isla yaabid yani self awareness waxa la jiro ina adiga gudahaaga inta fiirisada like isqaban kartid yani waxaana dadka la soo hor istaageen I just feel like ina ceeb tahay like humble waxa la jiro ina humble iska dhigtid حتى هذا تحي قبل أو قرح ذا بدن متقارن عدونك أنا هو قرح بدن أو أختر سن لما ده هو عيب oh my god مركزة ساس ما حسب هالسا يعني rag walbana yani way soo damcaayaan aniga waxaan ahay gabadha ugu quruxda badan galmudug hadii aad quruxdeeda ka heshay stilkiga ka heshay waxa dhila video ah noloshii shar gareeyo ayaan garaad xirsi oo ku magac dheer Samara waa gabadha ugu quruxda badan magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud ilchibis gaay dilay baani aniga hadii iga wariya ilaahay qan hada dadkeena waxay u dhintaan ma taqaanaa dadkeena kaliya ma aha adduunka dhan hada waxa loo dhimanayaa ma taqaanaa is like qof kasta inuu soo caanbaxo yani like waxyaalo aan hore loo arki jirin uu sameeyay ma ogtahay marka waxa la imaatay hada gabadhan waa original shaaka sidoo kale hada ka hor ma arkin ani oo gabadh intay soo istaagto aniga ugu qurux badan dhaxayso hay ila fiirin jacaylka iyo quruxda hablaha waxaana Samara koobka quruxda ku haratay isteelkeeda iyo qaab dhismeedka jirkeeda oo rag badan cajabiyay Samara oo aan kula kulmay Guraceel waxay ii sheegtay in rag badan ay jacayl iyo xiriir u soo bandhigteen balse ay ka diiday maadaama aysan u qalmin waqtina aysan u haynin sida iyadu ay sheegtay horta niman badan baa jacayl ii soo sheegteen waana diiday waqti uma hayay because quruxdeedii baan busy ku ahay Samara walaal maxaa kugu dhacay gabadh quraha la saaro This is not okay. ما حد عاي ما خلدن. What happened? guriga maxaa ka dhex socda gurigiina ma dhibaato ka jirto oo yani waad ku dhufatay marka maxaa weeyaan waxaan hay qaabka jirkaygu dhisan yahay sidoo kale ta face aniga fuuxan badan milay yani naan indhawaawina san dheer ahay af qurxoon alxamdulillah maxay caawiyaan aniga dadku waxay dhaayeen la kula anigana kulankayga yani chance ma hayi saas waaye anigana dadka ciita wariya ilaahay qaana aniga waan san dheerahay waa indha waaweyn oo jirkeyga waa laga yaabay adduunka dadka inay ila kulmaan baa rabaa weliga ilaahay oo $1 milyan maalisiyo maba ku dhacaba yani inta meesha soo hor istaaga dhaho aniga ugu qurux badan like la ilaaha illa allah muhammad rasuul bal ila sii daawada aragtida dad raadiyo boqolkiiba boqol ani marka wadada ana xataa xishoodo waxa sida maxay dadkana ka soo eegayaan Samara ayaa dadka aqoonta u leh ee la dhacay quruxdeeda u arkaan inay tahay gabadha u qalantay inay Soomaaliya ku matasho tartanka quruxda aniga waxa iga sii xanaajinay ma taqaanaa ilchabiska
ما حنوقي إلى جبينيسا. No, we don't want this. مرة بنو أنا إسماعيل دنو يقول رعسنت هاي بليز قولي جاعتك بيسيسو سواتكو أتكلم فطاي إسكا سياحة go قولي جاعتك سياحة. matasho tartanka quruxda ee Mrs Africa balse aan ayaa ka qayb galin tartankii Muqdisho sidoo kale Samara waxay sheegtay in marka ay dhex marayso bartamaha magaalada Guriceel ragga wata baabuurta ama meheradaha kula laamiga hareerihiisa inay ku mashquulaan quruxdeeda haddaba sidee ay Samara u aragtaa quruxdeeda maxaysa dadka kala kulantaa nimanka baabuurada wataan iyo businessyada ba igu mashquulaan ba يعني dadka waaba ka soo tagaan businesskeedaba gabadhii baan nahay xurul cayna la isku maleeyay qof saas loo sameeyay ma jirtaba like Beyonce hadda halka maraysa ma Beyonce waa isku malaysay ta siiba ragga waatan iyadoo ka waramaysa arimahaasi oo dhan markaas meesha dukaanka wax soo qabsan markaan gaari kale ka digmaago rag igu mashquula ama rag gaariyaasha joojinaa way jiraan iyo rag xataa hooshada ka baaqanayo oo dukaamada fadhiya xataa iska mashquulayo aniga ma aaminsani maanta gabar iga qorxoynay Soomaaliya joogto qurbo joogto waxaan dhihi lahaa dadka qurbaha joogo waqtinimaha waqtin aan igula hadlo yani iga raa noqdaan dhihi lahaa yaa ku rabo I don't understand dadka qurbaha joogo aniga waqtinimahayo نابل يا كرادين يبا وريا يا غانا أنا قبل صومالي ولا شيء أنا عايم ربا لكن ولا لدوا وام حسدا نقدع يا أخي لا إله إلا الله صدق نسمع هذا دت كيبا بزنسي يجي تجي قارياش بس كل عين صومالي الديارات كم دوش دراتين نهضم باودي من قبلنا محاولي ما ناكلته وريا إله يا قانا واي أنا جا شقوي كي إسكبر طبعا والله أنا قرت أهان لقي عتامين إسكصادقن ده قفا وين قروحيس من أنا قروحي ونس أوجاي قيمة ونس أوجاي ده عدد وحدة ونس أوجاي الحمد لله دتكنا يعني وإيش يا جسمة هنا قروح هذا مرة بصبدك رجوا إسراع وحدها أنا قبل أنا كره داهلين وحول يعني وحول باكب حدهن ما أنت ما بس أنت هربت واهش ولا لا أسمر إيه عند سوا وحول قلنا هبا إن أنت هربت واهش إن لقاه شيء يوم بعرفتي إني ناس عم بحذي هربت واسوا عم بحذي كسر عم بحذي معاك كسر عم بحذي you know what I mean like إلهي ونوالين قبل Soomaaliya وقبلها أدونك أو قرح بدن إن كلسوني لهذا هاي وافي عند هاي وين هذا أنا حتى هذا أمين سنة قبل كقرح بدن إني نشيرين Soomaaliya نيدا هذا ونكو حسوا ضدك أول شيء درس كعتا أول شيء الله والله شبي waxaa jiro oo aniga oo sun ii cabay oo 3-4 meelaha gaarayo saasaytaan aniga maxni ayaga sunta cabay ani ma dhahay maxay cawaayna aniga dadku waxay dhaayeen niman baa sun ii cabeen ayaga sunta cabay ani ma ku dhahay caba 4 nin baa sun yac ma jirtaba balkan hala keena nimanka sunta ku cabeen hana we want proof anaka waxaan nagu akhrinaysa fiiri dadku waxay dhaayeen la kula anigana kulankeyga yani chance ma hayi saas waaye anigana dadku inta aragtida dad raadiyo gabadha way jiraan dad waxaa jira gabdhaha aniga comment igu soo caaya matana qurux leh matana xawaan aniga quruxdeeda ana isku qarsan ma caaya ma caaya dikla afkaas ka daalinaan idii lahay waxaan aaminsanahay inaan quruxda Afrika maanta aan koob u qaadi karo markii galmudug laga soo tago dabcan marka Afrika dhan galmudug bismiya بس قلبي بس كتقاعد أفريقيا وقاضي كان أقول هذا first of all مرينا عايو ونعوها قبل Soomaali أنا public وعايو مرة وحن به لها first of all واحد شيء يصير ده وابان وح كتيرة وح كتيرة ما شرته طبعا Soomaaliya dhan marka hadaftan waxaan dhahay waan xanuunsaday alxamdulillah ilaahay baarta ma hadis kale waxa kaleetana mana xanuunsanay il bil aadan waaye markana waan xanuunsaday waxa kale ku xanuunsaday ma jirtana il bil aadan bas ay ku dhacday wari taagna ma isha ilaahana waalin hadaftan just wana qaba ragade rag qaar badan oo ay kor hadleena jiro laakiin alxamdulillah hadii ilaahay baa maas kale ani hadda marka baxayo hadana adkaar aan akhrisan aniga dan habeenkii ma sii caqaro qaro aan dareema waa kaas de waxa huruufka rabay noo sheegtay niman baa iga dhaxaleen waan qarwaa hadaan wax akhrisanin because waa ku dhufatay de
markaad ku dhufatay baa waxaa maalintii dambe la imaatay markaa yara qabowday adduunka anaa ugu qurux badan baa iskugu sheekaysa waad ku dhufatay caadiya u waalan tahay badee dareema cabsi badan laakiin anoo adkaarta akhrisana ama quraan akhrisana albaabka ma ka degi karo quruxdan horta ilaahay baa siiyey wax la iska keenkeen haba yaraatee ma ahan justina waan ag taaganahay qof makeup iyo wax samarsiiya ma ahan kalsoonida isku qabaa ma fahanteen alxamdulilah waxaan ahay gabadha fashionka maanta ugu shidan galmudug kan aan amisanahay gaar ahaan sii qulceel ilaahana waalin hadda gabadha way isla quman tahayba aniga asidana gaariyaal baa iskugu dhacaan oo nimankii baa horta waaba qiratayba dee waa sheegtay inaa waalatay waa sheegtayba waxba iga dhexqayliyaa tirahdayba so that's it case closed isku xirayba bicdan because qof caadiya intuu soo baxo isagoona welibana lugaha iska soo dhaqin xamuuradda xataa iska soo hagaajinin gacmaha aniga maxaa weeyaan aniga astaqfirullah ilaahay wallahi bilaa inaa caayo maraba because gabadha she's not okay like maskaxda laga hayaa marka it's okay iskaga qosqos laun qof aan maskaxda laga yeelin waxaan ma dhihi lahayn ba ma ogtahay wakaas inaa inta ila aragtiin baa rabe waxa ka qabana waray fikradda aan ka qabana inaa ogaatiin ba waan bariya walaalayaal oo gabdhaha kaleeto galmudug jooga ama meel kasta jooga adduunka waxaan oo kaleeto ma taqaana hala imaanina suuqa dadkii dhaleen I hope inaa qabsan lahaayeen gabadha like caadi istajiya that's it la ilaha illallah wayna kaadee nabaday muslina subscribe kana iga iloobin iyo suulka yaraa baqdash iigu siiya wayna ka nabaday